dadka ku shiraya iyo dadka isugu yimidna ay yihiin dad ehel ah walaal ah marka ahmiyad gaar ah marka shirka anigana ii leeyahay dadka shiraya uu leeyahay dhammaan Soomaaliya oo dhan uu leeyahay intaan shirka iyo faahfaahintiisii iyo wixii aan ka dhigahay aanan gelin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddigii qabanqaabada iyo guddigii farsamada ee shirkan soo agaasimay run ahaantii waxaan ogahay duruufaha ay kusoo agaasimeen waxaan ogahay xaaladda ay kusoo qabanqaabiyeen dabar adeeg aad iyo aad u weyn iyo nabadgelyo aad iyo aad u weyn iyo garaad iyo garasho aad iyo aad u weyn ayay sameeyeen guddigaasi marka waxay leeyihiin abaalmarin bay leeyihiin daba sharaf bay leeyihiin shirka ayay ka mudan yihiin waxaan dhihi lahaa guddigaasi marka shirka gabagabadiisa la gaaro in dhammaantood daba sharafyo la siiya ayay mudan yihiin waxaan sidoo kale u mahadnaqi lahaa ergadii shirka ka soo qayb gashay ee u dabar adeegtay ee muddada dheer intaan la eg fadhisay halkan ayagoo danahoodii iyo duruufahoodii iyo xaaladoodii intaba kasoo tegay ayagoo ujeedada keliya halkan ku joogaana ay tahay inay shirkan iyo ujeedooyinkii loo qabtay ka mida dhaliyaan ayagana runtii waxay mudan yihiin mahad iyo sharaf ayay mudan yihiin waxaan runtii sidoo kale mahadnaq mudan waxyaabaha in la bogaadiyna aad iyo aad u mudan ka mid ah isku tashiga uu shirka ku socdo shirka intaan la eg oo dadka baaxadaan leh inta adeegaysa inta shirka ka soo qayb gashay inta ilaalinaysa inta marka la isku daro 1000 qof aan ka yaray iyo muddada 2 bilood ku dhow ee uu socdo oo intaas uu ku socdo isku tashi iyo cid kale ayadoo ma aragtay wax dhaqaale iyo wax midna aan laga raadin ayadana wax aad iyo aad loo bogaadiyo waxayna tusaysaa runtii dadku inay ahmiyadda shirka iyo ujeedooyinka shirka ay fahamsan yihiin ayay tusaysaa waxayna tusaysaa miraha ka imaan kara inay noqon karaan miro dhaxalgala oo aad iyo aad loo bogaadiyo inay noqon karaan ayayna tusaysaa arrintaa ayadana runtii aadan hoosta uga xariiqaya aadan u bogaadinaya waana ku mahadsan yihiin dhammaan intii garatay iyo intii ka shaqaysay intii aad iyo aad ugu mahadsan yihiin haddaan qodobkaas intaa uga baxo bogaadinta waxaa idhaafay oo shirka qaybihiisa hore qayb muhiima ka ahaa qodob la yidhahdo iscafin haddee aniguna maadaama bahda guud oo meesha ku shiraysan aan ka mid ah dhinaca kalena laga yaabaa inaan mas-uuliyado iyo hogaamin badan aan soo qabtay suurtagal ay tahay dad badan oo ragga ka mid ah ama dadka ka mid ah inaan si un isugu joogsanay ama duruufo badan ka yimaadeen iscafintaan qayb ka ahay marka aniga cajis idin hal cajis iscafintu waa qodob aad iyo aad muhiim u ah dadku waa bini aadam carab iyo ka isugu dhawaan isqaliinaya isqaliinkaas marka la isqaliinay in nin walba nin kale walaalkiisa u cafiyaan waa qodob aad iyo aad ahmiyadiisa u leh marka maadaama uu iga hormaray iscafinta iga hormartay aniguna sidaas aan codsanayaa inay cafiyo anna aan dadkii qof alla qofkii midka aan cafiyo qodobkaas inta haddaan uga baxo waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo ahmiyadda shirka طبعا idinka wada daraysan ahmiyadda shirka uu leeyahay haddana waxaan rabaa inaan isxusuusiyo ahmiyadda shirkan uu leeyahay iyo qiimihiisa inaan isxusuusiyaan rabaa koow shirkan horta wuxuu ahmiyad u leeyahay inaad idinku heshiis iyo isfaham dhexdiina ah inaad gaartaan heshiis isfaham dhexdiina iskaashi idinka dhexdiina isgarabsi idinka dhexdiina iswalaalaysi idinka dhexdiina inaad gaartaan ayaa ahmiyadiisu gobadhay tahay waxaan filayaa qaybihii hore ee shirka arrintaas ayada ah in wax badan lagu lafaguray oo waxyaabo badan oo dadka dhexdooda ahaa si kastaba ha ku yimaadaan in la daaweeyey ayaan filayaa taas marka waa ahmiyadda koowaad isleeyahay shirka wuu lahaa ama wuu leeyahay aan isleeyahay ahmiyadda labaad oo shirka uu leeyahay waxay tahay deegaanka ama tashaan ee aad ku abtirsataan ee galmudug iyo deegaanada kaleeto deegaan ahaan aad degan tihiin ayuu asagu ahmiyad u leeyahay
shirkani waxaan isleeyahay qayb dhibax ka qaadan doonaa dib u dhiska labaad ee dowlad goboleedka galmudug dib loo dhisayo ayuu qayb weyn ka qaadan doonaa maxaa yeelay dadka halkaan fadhiyaay qayb muhiima ka yihiin dowlad goboleedka galmudug iyo dhismihiisa qayb muhiima ka yihiin iyo jiritaankiisa sidaa daraaddeed ayaga oo isku uur noqda midaysan isfahamsan waxay fududeynaysaa oon shaki ku jirin maamulkaasi in dib loo dhiso oo dib doorashooyinkiisa iyo dib u dhiskiisa loo sameeyo ayay fududeynaysaa ahamiyadda kale marka shirka uu leeyahay ayadana waa sidaas ahamiyadda saddexaad oo uu shirku leeyahay waxay tahay dib u heshiisiinta soomaaliyeed ayuuna shirkani qayb muhiima ka yahay waxaa laga yaabaa idinku inaad isku aragtaan beel danaheeda keliya ka shaqayso halkan fadhiisa inaad isku aragtaan laga yaaba laakiin soomaali meel kastoo joogto iyo caalamka waxaa laga arkaa shirkani waxaa loo arkaa shir muhiim ah oo dib u heshiisiinta soomaaliya iyo dowlad dhisidda soomaaliya qayb muhiima ka qaadan doona inuu yahay waxaa marka laidinka doonayaa in ahamiyadda uu shirka ku fidhiyaay qodobadaas aan sheegay iyo kuwo badan inuu xambaarsan yahay huwan yahay ayaa laidinka doonaya waxaa marka warre ah in shirka ahamiyaddiisa sidaas loo arkayo nuxurkiisa sidaas loo arkayo ilaahay ma qadaree wax aan nuxurkaas u dhigmin miisaankaas aan u dhigmin hadday ka soo baxaan ama wax ka soo bixi waayaan طبعا waxaan isleeyahay arrin dhacaysa ma aha insha Allah taala laakiin shirkan waxaa laga sugayaa inuu furo u noqdo idinkoo heshiis ah Soomaalina heshiis la shirkan waxaa la filayaa inuu furo u noqdo dadka oo wadaagta aad tihiin ee dariska idila ah dhinac kasta idinka degan yihiinba inaad nabad iyo isfaham iyo walaalnimo ku qaabishaan uuna tagtaan cid kastoo wax idin kala gaareen nuucu yahay shirkani wuxuu furo u yahay heshiisiinta guud ee Soomaaliyeed ayuu furo u yahay waxaan dhammaanteen wada ognahay Soomaalidu inaan weli dib u heshiisiin dhab ah dhicin dib u heshiisiinta ilaa hadda dhacday waa mid kuraas lagu qaybsanayo kaliya laakiin dib u heshiisiin wixii la isu geystay iyo wixii dadka dhex maray in la isaga garaabo لسه هيدو لسه أقرن صدر لجوا لا لو ولسه جامع بدر شغليني عطا يا رب العالمين لكن لما ما يستدق بحني وأنا مدة كانتي أما كان يسا تقولي كرسوني دول اسمه أنا ولي أود للدول النمرة يباور أنا لسه آمنين أو قد بقف كانوا كش كسيه بدأ كانتي لكن هذه تقول بهشيسين طبعا هي تبوش يشيل إيجاران وحصو حوغيسن لها أو مارتي هبقلي لها إن اللي يسأمنوا أو ترستجي يسأمنات دي إيه سنتو إذا تحدث لها يا إمام شركة اللي بتروح عن إسلام هاي نجحتك كنا أنكرا ويا هاي بيكون هشيسين داس أيضا نجحتك كنا قندرا يجيكوا هشيس وصومالي هشيس نهارنا قتل دوني يا أمام لا فريق أنا waxaan rabaa meesha markii aan kafta yar gelin maama yar ma angeli waana maamooyin badan helaan lahaa waxaa la yidhi hadda door habar dugaagaa shirtay habar dugaag markay shirtay waxaa la yidhi maanta wixii ka dambeeya habar dugaag iscunta oo isfiirisa oo isdhibaataysa yaan la arkin dhagdheer dhimatay colaad dambe iyo dagaal dambe iyo isfiirin dambe waa dhamaatay وهذا النادي دول أما تجيك تطبس يقال أو شركة وحكفة دي أيها سلطة دي مربع حق وأرضع مربع حق وأرضع مربع حق وأرضع ورنا يا فريسال اللي يدوي شيء النادي والله نبضي أرض كبر النجاح في فريق حيرات واضم دوي شيء ولا الإعلامي لكن ما حش بيصدق يجري أما المكولات ما كانت يسوي بوليس فريسال يشتغل ولا فريسال أنا وحان قبا هذا من هشيسان Soomaali ay heshiisaan arabtaan horta fadhiga hal bidda halkaas ka bilaabay
fadhiga horta ha la bedelo furfurnaan ha lagu bedelo galaangal ha lagu bedelo cid kastoo Soomaaliyeed waxay kala gaareen inaad u tagtaan oo walaalnimo iyo erga u dirtaan ha lagu bedelo ha la yiraahdo horta alla ilaahay degdeer dhimatay nabada dhacdo ha la yiraahdo qodobkaas qodobka aad iyo aad muhiim ah waaye qodob ahmiyadiisa leh waaye waxaan rabaa qodobkaas inaan uga baxo arrinta oo galmudug inaan waxay ka yiraahdo goboleedka galmudug sidaad ogtihiin iyo maamulada kale dalkaba waxaa lagu soo dhisay dhib iyo duruuf aad iyo aad u adag maraaxil aad u tiro badan waa laga soo maray dabar adeeg aad u tiro badan waa laga soo maray mashaakil aad u tiro badan baa laga soo maray maantana heerka iyo duruufta u maraya aad iyo aad uga qabo isaga sheekeynayna aad bay runta ayaan daro u tahay aad baan uga xumahay marxaladda uu maanta uu taagan yahay aadan uga xumahay maamulkii dhibkaas laga soo maray xaaladaas lagu soo aasaasay iyo duruuftii uu soo maray intaba in maanta meel laga baadi gooba aan la haynin waa dhib aad u badan waay wuxuu u baahan yahay marka dib dhis ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dib iyo geleelid ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in maamulkii dib loo sameeyo oo loo dhiso u baahan yahay dadka hawshaas culus ay sugaysana idinka u horeeya oo keen weynka wuxuu idinkaga baahan yahay marka in arrintaas fikir iyo aragti macna ka yeelataan dabacsanaan iyo tanaasub badanna aad samaysaan ayuu idinkaga baahan yahay dadka uu idinkala dhexeeyo maamulkaas samayntiisa oo ay dowladda dhexe u horeyso oo ay beelaha kale Soomaaliyeed dowlad degan ay ku xigaan waxay idinkaga baahan tahay isfaham iyo ma aragtay ka wada hadal ay idinkaga baahan tahay طبعا dowladda waa dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed laakiin waxaa dowladda laga doonayaa dadka maamulkooda inay dhistaan inay u madax banaysaan laga rabaa dadka ayagu inay wada hadlaan inay u madax banaysaan laga rabaa dadku qofkii ayaga dooran lahaayeen inay u madax banaysaan laga rabaa ayada mas-uuliyadeedu inay ahaato facilitator iyo inay fududayn inay ahaato dadku ayagu ee ahmiyadda maamulkooda iyo dhismaha maamulkooda inay ayaga yeeshaan inay dowladda samayso ayaa laga rabaa inaan dadka la jajoobin inaan dadka la maqmuunin inaan dadka waxaysan rabin aan lagu riixin ayaa loo baahan yahay waxay hadda xilligii la jajuubi jiray waa soo dhamaatay dad maanta waa wada tashi iyo iswada qadarin iyo isla ogol ayay wax ku dhismi karaan isla ogol ayay wax ku dhismi karaan qodobkaas markaas ayaa ka helahaa marka ahmiyadda galmudug iyo dhismaheeda ahmiyad aad iyo aad u ballaaran waaye ahmiyad aad iyo aad u weyn waaye shirkan iyo natiijooyinka kasoo baxana wax badan ayay ka tari doontaa galmudug iyo dhismaheeda ayay ka tari doontaa ayaan aad iyo aad u aaminsanahay mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u mahadsantihiin meesha maadaama ay kuleel badan tahay duruufaha iyo xaaladuna adag yihiin inaan waqti intaa kusii badiyo ma rabo waxyaabaha kaloo Soomaaliya iyo ku saabsan iyo runtii weeyda xilli kale ayaan ka dhigan doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh madaxweynaha waa mahadsan yahay waxaa kaloo mahadsan wasiiradeennii arrimaha